Salaamullaahi calaykum saaxiibayaal qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ku doorka roon waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka daahfuray shirweynaha qaran ee waxbarashada howlgalka dhan Al-Shabaab oo ka bilowday gobolka Gado golaha aqalka sare oo ansixiyay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka duqa Muqdisho oo aqalka dowladda hoose xamar ku qaabilay injiraha dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo toogatay askar dilal ka geysatay magaalada Muqdisho aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo furay shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka ayaa tilmaamay in dowladda ay ka go'an tahay dib u soo nooleynta mideynta iyo tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalka madaxweynaha dul istaagay qorshaha dowladda ee baahinta adeeg waxbarasho oo tayo leh iyo xaqiijinta manhaj mid ah oo qaran oo wax lagu barayo ubadka Soomaaliyeed ayaa xusay in la shaqaaleysiin doono 10,000 oo macallimiin Soomaaliyeed ah si kor loogu qaado fursadaha waxbarasho ay heli karaan muwaadiniinta Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in fursadaha waxbarasho ee xilligan ay helaan dhalinta Soomaaliyeed ay aad u hooseyso taasi oo caqabad ku ah dhisidda mustaqbal wanaagsan iyo xaqiijinta yoolasha horumarineed ee dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday aqoonyahanka qurbo joogta iyo kaadiriinta waxbarashada dalka in ay gacan ka geystaan hirgelinta natiijooyin waxbarasho oo dan u ah jiilka soo koraya si loo xaqiijiyo degenaansho siyaasadeed horumar dhaqaale iyo barwaaqo baahsan oo ka hanqaada dalkeena Soomaaliya gobolka Gado waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolkaasi saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay sidii Al-Shabaab uga qabsan lahaayeen deegaanada ay joogaan degmada Baardheer ee gobolka Gado waa halka xudunta u ah howlgalkan waxaana gaaray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gacanta ku haya ee sheegay in uu ka madax bannaan yahay dowlad goboleedka Jubbaland Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo deegaan doorashadiisu tahay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in howlgallada ka socda Baardheer ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay sidii Al-Shabaab lagu saari lahaa gobolka Gado waxa uu meesha ka saaray shakiga lagu xindaabay ee ah in dhaqdhaqaaqyada ciidan ay yihiin kuwa siyaasadeysan balse waxa uu sheegay in howlgalkan uu la mid yahay howlgalladii ka dhacay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim oo uu weheliyay gudoomiye ku-xigeenka labaad Mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa maanta shir gudoomiyay kala fadhiga labaad kulankiisii 23aad ajandaha kulanka maanta ayaa ahaa ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka dalka aqrinta koowaad ee hindis-sharciyeedka dhowrista xogta aqrinta koowaad ee hindis-sharciyeedka socdaalka Soomaaliya iyo aqrinta labaad ee hindis-sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ugu horeyn sanatarada aqalka sare ayaa guda galay ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo uu golaha u soo gudbiyay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya kana codsaday in ay codka kalsoonida siiyaan waxaana codka la geliyay kadibna lagu meelmariyay xubnihii guddiga oo ay codka kalsoonida siiyeen 30 sanatar ee kulanka maanta soo xaadirtay intaasi kadib ayaa la guda galay ajandayaasha kale ee kulanka
waxaana golaha aqrinta koowaad marsiiyey sharciga dhowrista xogta muwaadinka wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Jaamac Xasan Khaliif, halka wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaah uu isna aqrinta koowaad marsiiyey sharciga socdaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn, senatarada aqalka sare ayaa dood dheer ka yeeshay sharciga la dagaalanka argagixisada oo aqrintiisii labaad uu golaha marsiiyey Senator Aadan Cabdinaasir, guddoomiyaha guddiga amniga iyo difaaca aqalka sare. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa aqalka dowladda hoose xamar ku qaabilay danjiraha dowladda Talyaaniga u jooga waddankeena Soomaaliya Master Alberto Feki. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo danjiraha dowladda Talyaaniga u jooga Soomaaliya Master Alberto Feki iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir. Kulankan oo u dhexeeyay duqa magaalada Muqdisho iyo safiirka waddanka Talyaaniga ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dib u dhiska xarumaha danta guud sida isbitaalada, MCH-yada, wadooyinka muhiimka ah oo ay horay u dhistay dowladda Talyaaniga. Sidoo kale, kulanka duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa looga hadlay sidii loo dhisi lahaa xarumaha farsamada gacanta, maaraynta barakacayaasha iyo dib u soo celinta xiriirka magaalooyinka Muqdisho iyo Liberty. Ugu dambeyn, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun toogasho ah ku fulisay 2 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo dilal u kala geystay askar kale oo ay wada shaqeynayeen iyo qof shacab ah. Cabdishakuur Axmed Maxamuud waxaa lagu xukumay toogasho oo ah qisaasta dil uu u geystay Xasan Maxamed Shire oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada booliska Soomaaliya, sida uu sheegay guddoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida. Qofka labaad ee toogashada maanta lagu fuliyey waa Cabdi Jamaal Cabdullaahi Xeele oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalk Soomaaliya. Waxaa lagu xukumay in uu nafta dhaafiyey Cabdixakiin Maxamuud Khaliif oo u dhacayay, waa sida hadalka lagu dhigay. Heerarka kala duwan ee xukunada maxkamadda ciidamada qalabka sida ayuu kiiskooda soo maray, waxaana ugu dambeyn maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo dad ku eedeysan in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo geystay dilal iyo qaraxyo. Qaarkood ayaa la toogtay halka qaar kale ay yihiin xukun sugayaal.